السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa halkan marti inoogu ah cabdirasaaq sanweyne ex xildhibaan oo in badan siyaasadda ku soo jiray tan iyo xilligii uu dowladdii cabdiqaasin madax ka ahaa dalka iyo wixii ka sii horeeyey oo haystay gobollada waqooyi. marka maanta waxaan doonaynaa hadduu alla yidhaahdo inaan ka wareysano waxyaabaha taagan oo ummaddu hadda ay weliba gaar ahaan gobollada sool iyo sanaag ay dadkoodii ay ka doodayaan iyo puntland oo ah xubnihii aqalka sare. marka jaale soo dhawow. السلام عليكم ودوهي aad baan u dhowahay waana idin salaamaya. waxaan doonaynaa inaan wax kaa weydiino arrinta taagan oo ah aqalka sare oo in dhowey dowladda ay ku heshiiyeen iyo daafihii maamul goboleedada arrintaas oo ahayd saamigii uu lahaa gobollada sool iyo sanaag in loo kala qaybiyey iyo buuhoodle in loo kala qaybiyey maamulka puntland oo la siiyey 3 xubnood loogu daray ayagoo awal 8 hore u lahaa iyo maamulka somaliland oo 8 xubnood lahaa loogu daray 3 xubnood. arrinta ayada ah oo dood badan ay ka taagan tahay weli aana la qaybin weliba gaar ahaan kuwii somaliland 3deedii oo ay lahaayeen gobollada sool iyo sanaag. maxaa arrintaas ra'yi ahaan adigu aad ka dhiibanaysaa? بسم الله الرحمن الرحيم. runtii intaanan horta arrinta u gelin waxaan aad iyo aad alla uga baryayaa abaaraa taagan dhibaataa taagan in dadka maanta abaartu haysato in alle uu ka qaboojiyo oo raxmaad khayr qaba uu alla siiyo. waxaan kale oo ku baraarujinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaamada sool iyo sanaag iyo cayn inay gurmadka abaarta ka qayb qaataan. waxay maraysaa arrintu in dadkii la soo xereeyo oo ay soo xeroodaan. arrintaa aad baan dadka ugu baraarujinayaa. kii ku jirayna wuu ku jiraa, kii kalena ha ka qayb qaato, si guudna ha looga qayb qaato, si hoosana nin waliba cidduu ogaan karee hoose ee ehelkiisa ha ogaado. taa markaan ka gudbo runtii su-aashaadii weydiisay waa arrinta maanta waa ishuuyada taagan bay ka mid tahay. waxaan ka horraysiinayaa bini'aadanku haddii uu tashan waayo oo uu isagu ismaamuli waayo oo maamulkiisa cidda uu dhiibanayaa ay noqon weydo cidda sida uu ugu dhiibtay u maamusha, cid waliba way googoosanaysaa. sokeeye sheeye labaduba way ku googoosanayaan. in Somaliland iyo Puntland la kala raaciyo sool iyo sanaag iyo cayn ama buuhoodle wuxoodii la kala raaciyo dadka deegaankaasaa kasbaday. markaan intaa ka gudbo arrin aad u foolxun bay ahayd, taariikhduna aanay ilaabayn kolba xaggayga ama dad badaniba aan ogahay inay qabaan wixii halkaa in cabdirashiid iyo cabdiweli iyo axmed madoobe ay ka sameeyeen. Soomaali waa qabaa'il, dadka nin walba qabiil baa matelayay, haween rag baa matelayay, daarood iyagu haddayba ugu jireen waxay ahayd inaanay marnaba aqbalin in warsangel iyo dhulbahante qaybtii uu lahaa sidaa loo kala gooyo. 3 gobol weeye ama 2 gobol iyo badh weeye dhulkaas. galmudug oo gobol iyo badha ayaa 8 kursi oo aqalka sare qaadatay, iyagoo 2 gobol iyo badha ama 3 gobol oo kuwara dhiman ah ayaa 6 xubnood loo qoondeeyey. markaasaa weliba 6dii ummadda Soomaaliyeed qaab aan loo dhigin oo ah ciddaasaa waxaa ku siilan lagu sameeyey. marka waxa weeye arrintaasi waa arrin labadaa beelood ee warsangel iyo dhulbahantaba taabanaysa, dadkuna inay ogaadaan baa fiican. nimankii siyaasiyiinta ee arrintaa ka taliyeyna waxa weeyaan niman mudarro ka taliyey weeye. taasi waa taa hadda taagan. wax kastaba ha ahaatee markii sidaa loo qaybiyey wixii Puntland raacay
inkastaan wax kaloo dheeraada laga helin haddana saddexdaa la hel oo beelahaasi hele dhulbahantiyo warsangeli wixii xaggan raacay runtii dee waa tan laysku haysto equationka la geliyey equationkana waxaa loo gelinayaa marka la arko qofku inaanu wixiisii daba socon ama aanu dhacsanayn ama aanu ka hadlayn ama cid matelaysaa aanay jirin waxa weeye dee nina kuu sadqayn maayo oo ku siin maayo waxaan u arkaa inta haddeer waxaa ku doodasa saddexda xubnood ee halkaa la raaciyey ka soo jeeda beelaha direed reer sheekh saxaaq waxa hogaaminayo iyo jawaariga waraaqaha qoraya intuba inay khaldan yihiin runtiina waxaan u arkaa dee haddana rag baa jooga oo kaba hadlayey uu garaadku u yahay oday siday uga hadlayeen iyo si ka badanna inay uga ficil qaataan waa loo baahan yahay dadkuna inuu ogaado in waxay leeyihiin ay yihiin oo ay ka wada dagaalamaan oo lala socdo oo lagu ogaado kuwa gacanta ku hayo oo garaadada kale iyo ragga kale warsangeli iyo dhulbahantaba ay support siiyaan inta garaad jaamac ugu horeeya halkaa jooga haddeer hawshaa ku mintidasa oo ay ka helaan mandate inay waxaa ku raacsan yihiin oo nimankii oo kuwii waxaan qaybiyey ee dadka waxaa ku sameeyey ee Jubbaland iyo Puntland labaduba inay ka hadlaan baa loo baahan yahay oo in Cabdirashiid ka hadlo marka waxaa loo baahan yahay arrintaas waa arrin dee aad mudar ah waxaan noo arkaa arrin khaldan dee haddaan la dhacsanna ninna kuu sadqayn maayo ku siin maayo in la dhacsado oo la isugu wada tago oo laga wada hadlaan noo arka عبد الرزاق سوين انت انا كبحن سؤاشا waxaan doonay inaan wax ka sii weydiiyo saddexda xubnood waxa la sheegay in warqad uu soo qoray ninka la yiraahdo Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka kaasoo loo maleynaya in uu Xasan u soo dhiibay sababtoo ah waxa la yiri gobolada Sool iyo Sanaag xubnihii laga siin lahaa in ay soo carabaabeen oo ay waliba ay ku tilmaameen dadka laga tira badan yahay oo waliba uu Xasan uu ku doonayo qabiilka Fiqishini oo la nool dadooga dhulbaante ee dega gobolada Sool iyo Sanaag marka arinta xogaal ahaanta sidee bay kula tahay arinta bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan filayaa hore go'aanadii madashu ay soo saartay ayaa mar ay ka mid ahayd ay si gaar ah ugu cayimeen way yiraahdeen waxa ay si gaar ah ugu xuseen in beelaha laga tira badan yahay ay kursi leeyihiin saddexda kursi ee raacay dhinaca waqooyiga ee Sool iyo Sanaag iyo Buuhood laga leeyahay waaba laga yaabaa in Fiqishiniga looga jeedo waxaan se anugu caddaynaya ama aan qaba ama dad badan ay qabaan war dhulka dhulbahantaa leh dhulka jiideli ilaa iyo farhareere u dhaxeeya wax Itoobiya ku jira iyo wax gudaha ku jiraba dhulbahantaa leh dadka la nool ciday doonaan ha ahaadaan ee aan dhulbahante ku abtirsani waa dad dhulbahante la mid ah oo dhulkiisa degan oo aan cidina xuquuq gaara ka sheeganayn iyagu abtirsinyahoodu halkuu doono kala hamaro laakiin dhulka dhulbahantaa leh wixii ka soo baxa dhulka ee wax lagu qaybsanayana tasarrufkeeda dhulbahantaa leh khaladaadka dhacay aynu haddeer ka hadlanay ee Cabdiweli iyo ay sameeyeen ina Cabdirashiid iyo Axmed Madoobe ayay ka mid tahay in wixii dadku lahaa in la yiraahdo si specific cidaasa waxa leh war dadka dhulka dhulbahanta la degan haday wax ka helayaan iyo hadii kalaba intii ay dhulbahanta deganaayeen iyo in ka dambeysayba way la deganaayeen qaarkood waxa weeye arrintaas waa arrin khaldan dhulkana dhulbahanta leh hadii loolaba jeedo Fiqishini dadku ka mid yahay waxaan anigu oran balaha hadii loola jeedo ama dadka haddeer in badan ay qabto gudaha dhulbahante ilaan waxba dadka kuma kala qarsoone Fiqishini qolada kaluba ka soo barbar dagaalamaya oo uu leeyahay aan waxba la helin ee dirta waqooyi iyo Fiqishini ha qaybsadaan waxa meesha yaala waxaan qabaa arrinta waxaan leeyahay haday saa u jirto awoowayaal de wax horena waa la isu tirinayay dadkaadna ka dhalateen
oo dhex degan tihiin wax xasan culusow uu siin karo ama qayru ama nin hawiyo meel jooga ama nin isaaqi uu siin kara aan dhulbahanta u quudhin oo uu fiqishinni siin karaana ma jiraan oo ka soo dhex bixi kara carra dhulbahante waxa weeye dhulbahante iyo fiqishinni waxa weeye dhulbahante reer ka mid ah abtirsiinyo ciduu doona ha galo wixii uu xaq u leeyahay ee dadka la capacity-ga ay xaq u leeyihiinna cid u diidaysa ama hore ugu diiday ma jirto laakiin runtii ma fiicna sidaana uma shaqayn doonto oo suurtagalnimadeedu way adkaanaysaa in siyaasadda haddii ay jirto reer fiqishinna ay ku shaqeeyaan dad badan baa qaba adiguna su-aasha waad keentay markaa taasaan anugu odhan lahaa dad dadka ka mida weeye dad tuftooda lagu soo caanamaalay weeye fariintaan halkaa u marinaya waxa weeye awowayaal hadday sidaa waxu jiraan dhima arrintaa dadkaad la mid tihiin wixii dadku qaato haddaad xaq u yeelataanna waad helaysaan haddaydaan xaq u yeelanna wixii kale aad xaq u yeelataan baad helaysaan markaa taana saasaan ku soo gaabinayaa waa iga dhanta cabdirasaaq sanweyne ugu dambeyn waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo maamulkii ay dhisteen gobollada sool iyo sanaag iyo cayn ee khaatumo ahaa madaxweynena uu ahaa master dr cali khaliif arrimahan socda ilaa iyo hadda asaga iyo golihiisa wasiirada iyo baarlamaankiisa kama ayna hadlin waxaa kaloo war bixin ka soo saaray warmurtiyeed ay ku cambaareynayaan arrimaha uu jawaari warqadda uu qoray maamulka puntland ayaduna waxay ahayd qoraal oo ahaa ma aysan ahayn mid af ah marka arrimahaas sidee bay kula tahay adiga maadaama aad tahay siyaasi rugcadaa ah oo deegaankani ka soo jeeda bal arrimaha ummadda ka qancib bismillaahi raxmaani raxiim waxaan filayaa dee khaatuma kamay hadlin baa tiri aniguna maan maqal waxaan filayaa taa dee malaha khaatumo soomaali way ka baxday baan filayaa beryahan meel kalay aaday malaha sababta kaliftay inay ka hadli weydaa waa taa uun taas waa taa waxaa leedahay somaliland bay ka mid noqdeen oo malaha xaggaas bay aadeen dee saas maadaama ay ka hadli waayeen arrin soomaaliya xitaa haddii la yidhaahdo markay yidhaahdeen dowladdii xidhiidhkaanu jarnay dowladdii xasan culusow way tagtay dowlad iyo qarannimo cusub iyo teeram dambaa bilaabmay teeramkan dambena ma xidhiidhkay u jireen iyadoo aan la gaadhin waxa laysku haystaa waa teeramkii dambe qof waliba rightska iyo xuquuqdu ka heli lahaa inay ka hadlaan bay ahayd hadday weli dadka anigu ma aaminsani dee khaatumo inay dadkan metasho qof ahaan laakiin haddayba dad qabaan dee inay kaba hadashay ahayd ashkhaas ahaan xitaa inay uga hadlaan bay ahayd moogta marka waxa weeyaan taasi malaha iyadu dee arrin soomaaliyeed baanay khaatumo diyaar u ahayn tan labaad puntland warqad yar baa laga soo saaray madaxtooyada weliba si adag aanu qornayn wax macnaa ma samaynayso ugu yaraan inay miisaan weyn saaraan oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay shir jaraa'id wada qabtaan dabadeedna arrintaa jawaari ay ku cambaareeyaan madashii iyo intii kula jirtayna ay ku ogeysiiyaan waxyaalihii lagu heshiiyey in dembigaa laga galo khaladkaa laga galay wax yaroo ka liita waxaa oo aan xuquuq dad laga qaadayo la rabay in la duudsiiye aan ahayn ayay cirkaa mariyaan marka taa laftigeedu waxaan u arkaa inaanay ahayn qiimo weyn inaanay qiimahay arrintu lahayd aanay weli siin waxaana leeyahay war wixii hore khalad ahaa haddaad gasheen haddeer arrinta qiimaheedii siiya ayaan fariinta aan cabdiweli iyo u marinayaa iyo in cumar camayba ay tahay halkan taana intaasaan kaga baxaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane cabdirasaaq sanweyne kaas halkaa naga dhegeysanaysa waa raadiyo SSC. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.